Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ku soo dhawaada barnaamijka diiradda ku saari doono taariikh nololeedka Jamhuuriyadda Somalilan. Waddan kasta, dal kasta iyo ummad kasta waxay leedahay jiritaan iyo taariikh aad u dheer. Haddaba barnaamijkan waxaa daaha kaga qaadi doona Jamhuuriyadda Somalilan. Jamhuuriyadda Somalilan waxay 1960kii xornimada ka qaadatay gumaystihii Ingiriiska, waxaana midoobeen Koonfur Soomaaliya. Haddaba labada dowladood ee Koonfur iyo Waqooyi oo kala gumaysanayeen laba dowladood oo kala ahaa Ingiriiska iyo Talyaaniga, waxaa dhex maray labada dowladood heshiis dhanka dhaqaalaha iyo siyaasadda. Haddii tahay wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka arrimaha dibadda, jananka ciidamada, madaxweyne ku-xigeenka. Haddaba dowladdii Soomaaliya waxay gebi ahaanba heshiiska kaga baxday oo ilaashay dowladdii Somalilan. Haddaba Jamhuuriyadda Somalilan waxay xornimadeedii la soo noqotay 18 May 1991. 27 sannadood oo hadda ka soo wareegtay markay xornimadeedii la soo noqotay Jamhuuriyadda Somalilan, waxay dhisatay dal madax bannaan dhanka dhaqaalaha, dhanka ciidamada kala duwan. Jamhuuriyadda Somalilan hadda waxaa soo dhow 18 May 2020 oo noqonaysa Jamhuuriyadda Somalilan markay xornimadeedii la soo noqotay. Haddaba Jamhuuriyadda Somalilan sanad guuradeedii 28aad oo noqonaysa markay xornimadeedii la soo noqotay. Allaha inagu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo sanadkan sanadkiisa haddii Allaha eebbe idmo.